رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقيار شرفت الله حكسو دواتان صمتي أكاديمي waxaa isla falanqeynaynaa waxaa isla fiirinaynaa insha allahu tacaala lacagaa la filaayo in ay dhaqaaqaan maaragtay isbuucan soo socda insha allahu tacaala lacagahaasina runtii waa lacago aad iyo aad maaragtay aan rajeynayna isbuucan si qurux badan u dhaqaaqaan jimcihii lasoo dhaafay lacagta dahabka ayaa waxay sameeyay dhaqaaq aad iyo aad u qurux badan maasha allah oo dhanka iyo waxay aaday bay ayay aaday markaa aan isla eegno waxaa isla eegaynaa XAUSD sida u jeedaan maasha allah waxay sameeyay move aad iyo aad u qurux badan ayay sameeyay hadda waxaa joognaa waa hawarka soo lacagtan waxay sameeyay move aad iyo aad u qurux badan ayay sameeyay oo markaa waxay sameeyay bay ayay aaday soo marka sababta ay bay u aadana waxaa rabaa inaan ka dabageeyo insha allahu tacaala macnaha waxyaabihii sababta u lahaa soo marka ugu horeydo intaanan u gelgelin lacagaa la filaayo inay dhaqaaqaan weegan ama isniinta soo socota insha allahu tacaala isniinta lacagaha marka hore waxaa la fiirshaa lacagaha uu kasoo bixira wararka ayaa la iska eegaa hore waxaa jiro lacago badan oo markaa macquul tahayna kasoo baxaan warar marka forex factor ay imaanayda hadda markaasoo u jeedno isniinta waxaa soo bixi rabo oo abril maaragtay 12 ah okay marka lacagahan abril 19 lacagtaas waxaa ka mid ah lacagta USD ayaa ka mid ah marka aan haddii aan isla eegno hoos data trading view-ga eegno 19 bisha wax news ma jiraan talaadana sidoo kale wax waran ma jiraan arbacada oo ku beegan 21 abril ayaa waxaa jiro warar sida waxaa kasoo baxeeda NZD ayaa kasoo baxeeda waxayna ku saabsan tahay CPI ayaa ku saabsan tahay marka taa 7 saac oo macnaha 8 saac roman dhimo warkaas soo bixi doona soo marka insha allah isniinta iyo talaadada waxa waa yani si waxa u trade gareyn karnaa si safely u trade gareyn karnaa oo mid jiro warar ah ka baqayna markaasi in ay soo baxaan inay saameyn ay nagu yeeshaan arrintaasna aad iyo aad u fiican tahay marar badan waa idin sheegay okay marka waxaa isla eegaynaa markaan lacagtan XAUSD waa lacagta ugu badan ee dabcan la trade gareeyo aniga shakhsi ahaan lacagta ugu badan ka shaqeysta tan waaye alxamdulillah maantiina lacagtani macnaha waxaa ka dambeeya inay dhaqaaqdo wax factor badanaa ka dambeeya okay marka waxaa rabaa in iska dabageeyo sababta ay u dhaqaaqdo lacagtan ee bay u aaday iyo halka la filanayo inay aado weegan soo socda marka sida darteed adiga marka waxaa ku fududaanayso in aad constitute ka heshid meesha ay u badanta inay lacagtan ay aado marka taxliilinteena waxaa kasoo bilaabaynaa marka ugu horeysa higher time frame-ka sida dayliga waa maaragtay best time frame ee marka aan laas garanayo aad ku quus qaadan karto ama aad go-aan aad ku qaadan karto lacagtan sida u jeedaan halkan la sii adhaan halkan aad dhigano haddii aad dhigano kale tan kale aad dhigano aad dhahman famisayan halkan wuxuu leeyahay zone ama zone ayaa dhahma la sii adhaan lacagtan zone
soo marka lacagtan zoonkan ay ka baxday ka kacday waxayna aaday dabcan waxay aaday lacagtani tani walaalayaal waxay aaday dhanka Dubai ayay aaday marka waxay u badan tahay ilaa intaan in la keeno ilaa areas in la keeno ay u badan tahay oo macnaha zoonka la gaaro ay u badan tahay 1960 areas macnaha meel ku beegan in dahabka la keeno ay u badan tahay. Okay, marka structure-ka afreen waxaa waaye lacagtan hadda sidaa ay sameeyay marka waxay sameynaysaa doontaa dabcan qaabkaas camal ay ku tagi doontaa oo macnaha ay ku tagi doontaa kadibna halkaa unbay imaan doontaa ama maybe waxay gaari kartaa ilaa dhanka inay gaarto ayaa macquul ah ilaa dhanka inay gaarto oo kadibna markay halkaa ay gaarto ama halkan ay noqoto macnaha qiimaha laga saboorta gareeyo saboorta ay noqoto ilaa kor la garo kadibna ay soo daadato dana sidaa usoo laabato soo marka sidoo kale waxaa dhici karta sidoo kale in yacni haddana sida zoonka inta lasoo jabsho qiimaha halkan uu ku sameeyo macnaha maaragtay uu ku sameeyo consolidation kadibna boom oo soo daato ayaa macquul ah. So marka adiga decision-kaaga waxaa ku qaadanaysaa taxadar ayaad ku qaadanaysaa. Decision-kaaga waa inaad ku salaysid taxadar iyo feejignaan aad ku salaysid. Ma aha inaad iska qaadatid ama inaad lacagtan aad iska gashid ma ahan. Waa in aad taxadar aad ku dartid insha allahu tacaala. Marka lacagaha kale aan filayno inay dhaqaaqaan ayagana waxaa ka mid ah المثال محاكم بقى عبد العتام محاكم بقى جي بي بي يو اس بي وكلا عن فيرنا عيننا ان شاء الله جي بي يو اس بي سيء جدا لين فرنكا وحنا الشيء السوق أصلا يستحاير حاير أصلا السوق مركل تشوفه واحد داعي ديلتين فرنكا سوقان حايركيس واتنا بس ما يستحاير حاير أو سمستي أو مش كسرسي سوسر جدا سيدا جدا وحسن سوقنا wuxuu sameystay xayr ayuu sameystay kadibna wuxuu sameeyey sida ay u soo daatay sida ujeedaan waxaa filayaa marka in uu haddana kor uu aado oo bay aado ayadana sida gold oo kala bay u filanaya ayadana bay u filan marka casharkan wuxuu ahay lacagaha la filaa inay dhaqaaqaan especially ana lacagaha isoo haya waxaa ka mid ah lacagtan maaragtay FCA USP iyo maaragtay goor maadaama ay yihiin labada lacagood markaasi ugu saameynta badan ama bana la taraad gaaro maadaama ay yihiin waxaa ka filaynaa dhaqaaq fiican ka filaynaa insha allah tacaala هذا ما سنتين إن شاء الله 10 كان 10 لما تقوم بدونه واحد يرجع